la yiri iyo huuhaa iyo ma aha sheekadu xitaa maalka heestan oo leeyahay waa lamada waa wehel ya qisadan ay qayb ka tahay ana caawil faasina marka ha waa true story iga soo كسر عاوح sheekada marka ay ka بابا bilaabanayso وحوي شن هيس وهيستاس كميتا هل مر soo fasaxda un kartay ha dhigeyso sheekadu waxay ku bilaabanaysaa ninkan oo markasta gabadha xaafadeeda tegaya ay waxay u qortay fariin gabadhan marka asagoo jecel yahay gabadhan wiil kaloo yar ayay shukaansataa markuu guriga tago waa la kala qariyaa ma heliyo gabadha ma heliyo marka waxay ku tiri niyo adiga niyo wayahan waa inacda camal ma fahamta naagaha ayagoo intay jambal ku dhigaan ay adiga buusa ka kuleeyihiin waa inacday niyad iima haysid qalbiga ima soo jeedo meel ka too jeeda qalbigaaga balaayi kugu afayaan marka wuu soo wacay wuxuu yidhi niyow gabadhu waxay leedahay adeerow aniga ninkaas cadcadiyaa dhalin leehdo oo saaxiiba aan ahayn muddo aan saaxiiba ahayna dhalay waana madi oo hadda ma haysayo gabadh iyo wax dhasho ma jiraan waa sagal dhasho ma jiraan marka wuxuu yidhi gabadh saanay adeerow ay leedahay adigu jacayl xunna wuu hayaa aniga markaas waxaan soo saaray heeska la yihahdo aragaaga qurxoon bay indhahaygu jashaano aroor kasta iyo habeenkii aqalkaaga hortiisa yarlaygama waayo anima kaahan karaya adimaan axdi kaaga baxaya dayni karaya anima ku iloobi karaya macnaha halkaasay marka bahasha ka bilaabatay kadib waxaa dhacday gabadhii habeenka dambe si loo joogo sheekada u socotay waxaa soo baxday gabadhii inuu nin kale ay guurkii dhammaysteen adigu marka aniga ima soo wicin ooyin buu bilaabay guri ku yaal siinaay buu tegey adaa sheekada watay gabadha marka dibadda ma aade maya gabadhu waa shaadiye sharfaan ka sheekaynaya ha waa ogahay laakiin sheekada dibadda aade benguur ahayd Soomaa maya dibadda ma aadina gabadhu marka hore wiil bay iskaashanayeen haddana cabdifatax way isjeceliyiin waa ku soco gabadhan maaqan waxay iska noqday gabadhan waxay ku aansatay inay cabdifatax isguursadaan cabdifataxna markaas wuxuu furay Yurub Genyo ha waa runta waagaas Yurub Genyo furay aan ka sameeyay heesta cabdifatax Yurub ay leedahay ismi daahir haddaan jirayaa jacayl haddaan joogo caashaq galay haddaan jaangooynayaa ruuxaan jantay jaleecada eegmadiisa indhihu jiitoon ka helay miyuuba jiraa maya miyuuba jiraa midaan dunida ku jiibayn karaya laxankii ayadaba aan sameeyey wow haddaan jirayaa jacayl baa leeyahay haddaan joogo caashaq galay marka waa tuu muudkaas ka soo baxay odaga marka xaaladan baa iswajahday marka sheekada iswajahday adigu iska waxbaan xeelinaya adigu ala hal odagii markuu ooyi soo bogto soo wacay wuxuu yidhi finina qoftoo asbaqalnay waxayna ii sheegtay inay guursanayso maxaa la isku qabtaan ku yidhi adigu mataqaanaa adigu waxbay ii sheegasay gabadhii aan la hadlay waxaan ku yidhi ma run baa sheekadan waxay tiri ha abti macaan saas way tiri waxaan dhahay maxaad arrimahan u samaynaysaa marka adigu iyaduna gabadh weye waxbay sheegatay markaas wiilka adigu wuu yara xanuunsaday inta ayagta isagoo wuxuu wiilkii cuntana ma cuno mana seexdo si uu stress u yahay niyo waxaa u malay wiil khuraasaan loo baahan yahay adeerow
markaas waxaa soo baxday mataqaana isagan la hadlay wuxuu yidhi qoftii xilli hebelaa loo balansan yahaaba waa iska dhammaanaysaa waa nin kale guursanaysaa wey oo hebel yidhaahdo okay fine markaas waxaa soo baxday hees yidhaahdo inaan ku ilmeeyo awada hurdi waayo inaan unta diido afkaanana biisan adna aad istaariixdo aramiga adigu beertiyo axdigii fulin weyso waa imtixaanka adduuniyo arinaana filayne urugadii xanuunka utuntaan qarsanayay bulshadiina ogaatee ilaah baan kugu daayey xamaraanka dhexooyo adna aroos inankaad anigii iga jeclaad iska aroos inankaad abbaayo iga raacday bas دايرة صوت heesaas qadarkeeyo heesaas uu ku fureysto one of the best songs ee markaysa aa u dhiibayso farxiifiska waxay samaysay farxiifiska heesa kusoo baxday inay qoftaas khatar tahay waxay dhex gashaa dhagay gashataa xilli oo waxay ku jirta winterna way ku jirtay bustaha loo hoosgelaysaa way ku gamcaysaa iyadoo dhegeysanaysa ooyeysa ku gamcaysaa haddana way soo kacaysaa way dhagahay gashanaysaa meel la fadhiisanaysaa gabadhii way ku murugood farxiifiska waxay u taabatay si aan caadi ahayn bay u taabatay sheekada la socotay marka waxaa meesha marka soo baxay hees la yidhaahdo gabadhii way guursatay wuxuu marka keenay sheekada la yidhaahdo heesta la yidhaahdo cafis baan ka doorbiday baa iigu xigtoon miiska u saaray cafis baan ka doorbiday in dadka wada yaqaanaan u malinaya heesta cafis wax kastoo aan sameeyay isla qadarkeeyo waa qaaday heestaas ha bis adigu sheekadu adigu waxay lahayd mataqaanaa wejiyo badan bay sheekadu lahayd laakiin mataqaanaa waxaa markii dambe lagu heshiiyey in dad walaalo noqdo walaalo ya gabar uu maxamed cabdullaahi farmaajo uu adeer yahu sweden dego nasra waxaa la yihahdaa waxaa la nasra farmaajo waalkiisa dhare yaa isoo wacday wixii daahiro arrintan muddaan ku dhex jirnay waxaa fiican in walaalnimo ay ku dhammaato ya intii coqda isu qabi lahaa markaasaa waxaa soo baxday heesta walaalnimadiyo wanaagu inay wadanku ahaato waxweeyaan aad u fiican weliba sii qurux badnaato markii la isweeshanayo waxweydiintiyo ogaalka sheegiyo talada fiican walaalnima buuxda weyn walaalnimadiyo wanaagu inay wadanku ahaato waxweeyaan aad u fiican weliba sii qurux badnaato markii la isweeshanayo waxweydiintiyo ogaalka sheegiyo talada fiican walaalnima buuxda weyn ifka lagu yahay walaalo ifka la isweheshadaa ifka wax la isugu tagaaye alla ifka lagu yahay walaalo ifka la isweheshadaa ifka wax la isugu tagaaye marka heestaan soo baxday waxaa dhacday way la soo wada hadleen waxay dhaheen hees talantaali noo samey ayaa layidhi oo aniga asaga aan sugu riyaaqayna markaan isagana aad buu u faraxsanaa habeenkii gabadh la xabso xubbi gabadh la yidhaahdo oo reer holland xaafadda inuu joogay dhowr jeer buu ugu soo celceliyey
heestii baan sameeyey uu telefoonka iga duubteen heestii waa la xameeyey laakiin gabadhii heestii the last minute way ka baxday inay la qaadaqadatayo marka heestii waxay wada qaadeen Saacid Simar inay dhegeysiiyaan rabaa Saacidiyaan iyo heestaa qaado si eedii alright halka markay ka sheegay halka markay marayso waxa dhacday gabadhii shaadi iyo odaygii xogaa waa isku dhaceen oo ninkii Cabdifataah ahaa ayaa xaafad kale qof kale waa taqaan sidaas waa la socotaan ku dhageeyay iyo ka shitay marka way shakisay way gabadhii way soo wacday idan way hayso in abti macaan aad iyo xushmaysaa tiri hees baan u sameeyay tabashada ooridaada oo ganacsiga oo marka heesta ninkan ma qosayso laakiin qisadan ay qayb ka tahay marka tabashada ooridaada ayaa waxay ka baqshinaya عاشق أريدها توصل لودقاي منها تطلب ستاتلاي تلاي جعلكم معها تلاي جعلكم عاشق أريدها توصل لودقاي منها تطلب ستاتلاي تلاي جعلكم معها تلاي جعلكم waa iska nasiibkii calafka waxa weeye markastaba Cabdifataah iyo Shaadiyo way kala tageen daahiro adaa ku watee raalahow waxaan rabaa laba fanaan oo aad isku mar soo saartay oo heesahooda badana adiga aad samaysay kiiba meeqa heesa u dhiibtay Dayaxdal Nuurshe iyo ninka la yiraahdo Qadarkeeyo total ii sheeg insha Allah if you don't mind okay
والله قدر حملنا إن سجالته هذيك هذو الضيع سجال وي قدر حوي كولا بس ده 10 سنة طبعا كويتون قدر كويتون qadar 11 dayaxdal nursana 9 سجال waaw مركا waa kala tageen marka gabadhii shaadiyo iyo tacfitaax waa kala tageen marka kala tageen ayaa waxaa bilaabanaysa marka daraamo way kala tageen kala tagaane ninkii qadar ahaana uu gabadh buu guursaday ingiriiska ah marka daraamada muhiimadeeda iyo cajiibkeeda iyo qasooyinkeedu hadday bilaabanayaan marka waxay tahay dabeecadaha jira qadarku sidii kale waa iska dhalinyarada kugu yara dabeecad adag yahay dabeecad qalafsan yahay waa wascqoday ya wascqoday wuxuu u qaatay in ay ku jeesjeesayso wascqoday marka waxbaa laisku garbaashay marka isagaa jeejeesa marka jeejees isagaa bilaabay aniga saana ahay saan tahay waxay idinka aad qaabkii maqasheen marka waxaa soo baxday heestii la jees iyo waayadan qaaladan baa qaada jees daahiro adaa ku watay abwaan aniga heesaadoo dhan horta waa la socdaa dadka qaar baana soomaalida la socon qaaliladan baa hadda soo qaaday heesaheedoo kale hees waxaa jirta oo aniga shakhsiyan aan u arkay heestaas karbaash waay laakiin dad baa waxay u maleeyaan heesta inay hees niika tahay laakiin korle iga mar heestaas ma hees siyaasadeed baa shimirkii walaweysha aaboodi jannaara shaniile wixii geeyaa sheegi karin heestaasaa rabaa kaakuweysa nafteyda aan dhammaan iyo sheeka maa la wadaa heestaas dadka way ku niikiyaan waxaa weeye heestaas waxay galbaad ku aad ninkii oo raggii oo hogaamiyihii oo axmed gudane wixii intuu hargeysa usoo tegay waxama u yimid oo diintalam ku wato ya haddaan fahmi karin sheeka maa la wadaa inay diin waxaan ahayn adoo fartay shaangaani adoo ku barbaarisay marka heestaas markaa samaysay iyo axmed gadana waqtigii la cunay niyo adiga nin nooc kala tahay waxaad sacabshaata fiiri shaangaani adoo ku barbaarisay bisna adaa qoolin shabeel iyo libaax wixii ay ka shanay haddaa i sharaxaysid ya waa kaa shakiyo shaafuweysa nafteydii shuxshuxaan dhammaan iyo sheeka maa la wadaa sheeka maa la wadaa ma isla marka waa gartaan heestaa ku soco marka waata marka codkii marka heestaa marka qaaliya qaadayso shaadii marka heestaa ka tirtinaysaa jeesjeesayo wayadan afkiiba juudi gabaye jawaabihii yaabkalay jahadiso igamarumi jeesjeesay wayadan halkii waa juqdi gabe jeesjeesayo wayadan wayahan afkiiba juudi gabaye jawaabihii yaabkalay jahadiso igamarumi jabkige allaho jabkige inaan ku jirsho ku helin jaarkuba soomayogan inaan ku jirsho ku helin jaarkuba soomayogan jabkige allaho jabkige inaan ku jirsho ku helin jaarkuba soomayogan inaan ku jirsho ku helin jaarkuba soomayogan marka sheekadu iska socotay heestaan qadri bahalkii kale qaaliladan heestaan hadda ay qaadayso iyo heeso badana u dhiibtay hees kaloo waxaa u dhiibtay oo jirto ayadana aabba la dhahayo if I'm correct ansaxana
waxaas oo dhan ma isku sanad bay ahaayeen mise ما كدوين أباك على أنكو أباه دنتوي ولا شيء أباه aniga على inta وجنس hees كده oo جاب hadeer ولا aan جوجل شوف inta hees aan daahir cali sow aan ku arkay hadeer waxaa waaye 39 baa ii tirsan aniga dad baa waxay leeyihiin cunuggu waa sii wallaahi heesahan oo dhan maxaa waa daahir cali sow heesuu qoro dhan waa koraanka ayaa u malaynaya all of them caawa haddaan ii tiri ninka yaaba sababtoo aniga saacadaha dambe markii la gaaro maarag waxaa waa heesihiisa koobi ku sameeya marka waxaa waaye abwaanka unique company daahir cali sow unique company abwaan weyn waa siyaasadda dhinaca naga dhiga heesaha markii laga hadlaayo ninkaan abwaan waa ninkaan ani waa wataani weliba heesihiisa they all have meanings ay wada leeyihiin أما هذا واحد جت هيش عن أو ذيك جعل عن مجيلك السياسي أو قادان شعري سيمون طيح ضلوا شيء قدر كيو محمد طوالي محمد ديكسي ولا يديك روح عادوا نيد ظهر له قد هذا دوين سين حدود كعلبة ما حد كدوين لاي ها heesta talantaaliga ku wada qaadayaan kulligood waniyo wiilka maxamed tobanle maxaa heesa ugu dhiibi weysa ninkaas nin fiican waaya fanaan waxa waa shida ninkaas maxaa heesa ugu dhiibi weysa wiilkaas wiil fiican waaye aadna u soo dagaalamay weliba heesa badan u qaadaa laakiin yar kale waxaa la jiro heestaas adiga aad qortay oo la qaaday ayakana magaciisa waa iga maqan yahay oo dayaxdal maxamed deeqsi aan dhaaf Soomaaliya waxa waaye qadarkeeyo okay markii ugu dambeysay marka sheekada storyga marka oo markaan soo adiga markii ugu dambeysay waxay sheekada noo maraysaa ilaa hadda waxay noo maraysaa haygu oran marnaba haygu oran erayada jacayl inankow haygu oran ay noo maraysaa ubixiyaan daawan jiray haddaad shalay yahay haddaan naragaaga quraa ayaama u soomi jiray anuu awgaa ildaran ibtila waa taa digto ibtila waa taa digte haygu oran marnaba haygu oran erayada jacayl inankow haygu oran halkaas sheekadooyisa marka jacaylkii ooba markaan la joojiyey iyo shaayo oo odagada ku laabatay halkaas sheekada ka afaqaan doonaa yaa ha sheekada haygu oran marka really adaa waxay soo weydiiyeen commentiga igu weydiinayaan dayax heestad ugu jecesha heesiisa